soo dhawaada saaxiibayaal. Cilmi baaris lagu sameeyay furayaasha guusha loo kaashan karo ayaa muuqaalkan kugula wadaagi doona qodobo muhiim ah guushaas. Qof kasta waxa uu ku beeran karaa hami ah inuu guul gaaro. Ruuxa bulshada ku qiimeysa saraynta iyo karaamaduna waa kan laga arko guul uu ka gaaray hawl uu gacan qaaday ama si guud nolosha. Qodobkeena koowaad himilo cad. Sirta koowaad ee guusha noloshu waa inuu qofku dhigto ujeedooyin cadcad iyo hawlo qodobaysan uu doonayo inuu ku guul gaaro. Waxaa iyaduna muhiim ah in qofku ujeedooyinkaas uu qoranayo u qaybiyo kuwa himilada dhow iyo himilada fog oo uu hiigsanayo mar dambe inuu guul ka gaaro. Waa inuu qoro jidka uu marayo himilada dhow oo u kala horeysa sida ay u kala muhiimsan yihiin, kadibna uu qoro jidka uu uga wareegayo haddii jidkaas hore xirmado. Waxaa iyadana marar badan muhiim ah in hawsha uu doonayo inuu ku guuleysto ay lahaato waqti xadidan oo qorsheysto inuu ka guul gaaro, si haddii waqtigaas uu ka gaari waayo uu dib uga fikiro waxa khaldan iyo sida uu ku sixi karo. Qodobkeena labaad go'aan qaadasho. Waa in go'aamada aad qaadanaysaa ay noqdaan kuwo fulintooda ay ka go'an tahay. Haddii bilowga hore aad shaki badan ka qabto fulitaanka go'aankan, ha qaadan go'aankaas ee dib uga fikir. Qodobkeena saddexaad awoodda saddexan. Jaranjarada guushu waxay ka bilaabataa kaabada koowaad oo go'aan qaadasho ah, laakiin ha ilaawin in go'aan aad ku gaarto hawlqabashadeeda uu ka horeeyo 3 arrimood oo ah in aad marka koowaad garato awooddaada dhaqaale jidheed, aqooneed iyo karti kasta oo hawshan uga baahan tahay in aad leedahay. Haddii aad taa hubto, waxaa iyaduna muhiim ah inaad garato waxaad ku wanaagsan tahay. Tusaale ahaan, haddii aad og tahay in aad saxafi ku habboon tahay oo hawaayadeedii hawshan iyo aqoonteedii aad buuxin karto, ha isku hawli inaad noqoto taliye military si aanay ugu fishilmin gaaristeeda ama ugu yaraan waqti badan kaaga lumin. Arrinta saddexaad waa inaad yeelato hal adeegii go'aanka aad qaadanayso iyo samirkii aad ku sugi lahayd natiijadiisa. Haddii aad saddexdaas hayso, waxa aad qaadan kartaa go'aan adag oo guusha furo u noqda. Awoodda saddexan ee qofka looga baahan yahay inuu ku dhaqmo waa oofin, oo looga jeedo in qofka marka koowaad garto yoolkiisa iyo halka uu beegsanayo iyo weliba jidka uu marayo. Hal adeeg oo ah in qofku ka soo gudbo marxaladii fikirka oo si ficil ah u gudugala hawsha uu doonayo inuu ka miri dhaliyo. Dulqaad waa habka kaliya ee qofku kaga gudbi karo caqabadaha kaga hor yimaada kuna sii adkeysan karo dhibta ka sokaysa gaarista hadafkiisa. Qodobkeena afraad curin. Arrimaha waayo aragnimada lagu ogaaday waxaa ka mid ah in curintu ay ka mid tahay furayaasha ugu muhiimsan ee guusha noloshaada aad ku gaarayso. Curintu waa qofka markasta maskaxdiisa miira si ay u keento afkaar iyo qorshayaal cusub. Waa qofka oo hal abuur yeesha markasta oo hawlka farxashana ka fikira hawsha kale ee iyadana tahay inuu ka guul gaaro. Qodobka shanaad qaladaadka wax laga barto. Qaladaadku ma aha dhamaadka nolosha, mana ahan dhamaadka rajada guusha, balse kaliya khaladku waa dugsi ay qasabtaa in qof kasta oo mara looga baahan yahay in wax laga barto lagana faa'iideysto. Qaladaadka aad galayso inta aad ku guda jirto dadaalka iyo himiladaada ka guul gaarayso waa in aad u qaadataa waayo aragnimo iyo darsi aad ku cibar qaadanayso. Iska jir in qalad mar aad gashay uu kugu noqdo buug abid ku daba socda, si joogto ahna aad u xasuusato, waayo taasi waxay ka hor istaagaysaa in aad dadaal dambe gasho. Cabsi ayaad ka qabtaa in aad haddana qaldanto. Qaladka ka qaado wixii duruus ku jira, sida in aad fahanto sidii uu ku yimi iyo sida ay tahay in aad mar labaad iskaga ilaaliso. Intaa waxaa ka soo haraba waa qaladka in aad dhabarkaaga dambe ku tuurto si aanad dib uga soo xasuusanba. Qodobka lixaad ka faa'iideysiga waqtiga iyo nidaamintiisa. Arrimaha muhiimka ah ee guusha nolosha waxaa ka mid ah inuu qofku yaqaano sida uu ugu fiicanayo waqtigiisa uga faa'iideysan karo gaarista yoolkiisa nolosha. Waa in aad waqtiga u aqoonsantaa inuu yahay hanti qaaliya oo Alle hibo kuu siiyay. Sida saxda ah waa in aad ka dhigato raasamaal aad kaga faa'iideysto, sababna u noqdo guul gaaristaada. Haddii kale waa seef laba af leh oo adiga ayuu ku jarin waqtigu. Qodobkeena toddobaad rajo inaad leedahay. Rajadu waa samaanta waxayna ka mid tahay tilmaamaha muhiimka ah ee lagu garto ruuxa guusha gaara. In qofku khayr rajaysta waxay qalbigiisa ku beertaa rajo fiican iyo kalsooni uu naftiisa u qaado, waxayna ku dhiirigelisaa firfircoonida iyo shaqada. Arrimihiisana dhammaantood lagama maarmaan ayay u yihiin guusha uu ruuxa doonayo inuu noloshiisa ka gaaro. Haddaba intaas ayuu ku egyahay mawduuceena. Tan iyo muuqaalka xiga intaa ku kulmi doono. Waxaan iga tegayaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.